kulan isugu jiray duco iyo quraan akhris ayaa lagu duceynayay taliyaashii 9kii bisha May qaraxa lagu eegtay saldhigga degmada Waabari ee magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay taliye ku-xigeenkii qaybta guud ee gobolka Banaadir Axmed Cabdi Weheliye. Allah u naxariistay marxuumkiis gaashaanle dhexe Cabdi Baasid Maxamuud Cagay iyo taliyihii saldhigga degmada Waabari Axmed Cabdilaahi Baashane. waxaana kulanka ka soo qayb galay taliye ku-xigeenka qaybta guud ee gobolka Banaadir Saciid Bareere, gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Maxamed Cali, taliyaha saldhigga degmada Wadajir Xasan Cabdulle, taliye ku-xigeenka saldhigga degmada Wadajir Maxamuud Maxamed Amiin iyo mas'uuliyiin kale. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliye ku-xigeenka qaybta guud ee gobolka Banaadir Saciid Cali Bareere. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته ولا لهن قاشان لح أحمد عبد الوهلية قاشان لسر أحمد عبد الوهلية قاشان لح عبد باسد محمود عقي قاشان لح أحمد عبد الله باشانة ودمان تود أها رجل الله هنا شغل ذاك أنا هين aad isugu dhaweyn oo hal mar naga wada baxay. Allah u naxariisto mutacsiinina bulshooyinka Soomaaliyeed ay ka tageen saraakiishaas qiimaha badan si gaar ah ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ay baneeyeen booska garabkoodii. waxaan leenahay Allah u naxariisto saraakiishaas annagana waxaan leenahay ilaahay gaashooda lama fidnayo. waxaa sidoo kale hadalka markiisa qaatay gudoomiyaha jaaliyadda qurbo joogta UK. halkan waxaan ku sameynay xaflad yar oo ah quraan akhris oo loogu baroordiiqayo walaalaheena dhintay. qofka muslimka ah waxa waaye markii uu geeriyoodo acmaashiisa dhan way go'aysaa soonka iyo salaada waxa u soconayo ducooyin in loo duceeyo. marka walaalaheena waxay naga mudan yihiin inaan u duceyno oo mar walba aan soo xusuusano oo aan u duceyno oo qulubteena aysan marna ka bixin. waa dad muslimiin oo walaalaheena ah oo qiimo agteena ku leh. tan kalena waxa waaye taliye Cabdi Baasid waxa aanay si gaaran saaxiib u ahayn degmadana wuxuu u soo qabtay wax badan oo soo qabtay nin qulubteena ka go'ay maahan. waxaan leenahay kulligooda kitaabkooda midigta in Ilaahay ka wada siiyo in Ilaahay qabrigooda u waasiyo. Yaasiin Faytiin VOS magaalada Muqdisho.